kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka hadaan oo kale shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeenana waxaa kamid ah siyaasiyiinka diga qorshaha uu damacsan yahay Siciid Cabdullaahi Daney haddaba qorshahaasi muxuu yahay wararkeena ayaad kaga bogan doontaan iyo ciidamada uu hogaaminayo xildhibaan Xaadoole oo la wareegay deegaano horle qodobadaas iyo kuwa kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan qaar kamid ah musharaxiinta xildhibaanada maamulka Puntland u tartamaya doorashadii 2019 ayaa si weyn uga digay qorshaha muddo kororsiga oo ay ku eedeeyeen in uu damacsan yahay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Daney musharaxiinta oo ay ka mid yihiin wasiirka maaliyadda Puntland Faarax Cali Shire iyo wasiirkii hore ee waxbarashada Puntland Cali Xaaji Warsame ayaa waxa ay sheegeen Daney inuu doonayo in saddexda xisbi urur siyaasadeed ee ku soo baxay doorashadii golayaasha deegaanka ay muddo kordhin u sameeyaan ragayagii madaxweynaha la kulmay waxaan kula talinay inuu caddeeyo inuusan muddo kororsi uusan u soconin barnaamijkaasna uu daacad ka yahay laakiin sida hadda soo baxaysa waxa weeyaan dowladdu inay faras kale hadda saaran tahay aysan doonaynin in la wada guuro ayuu yidhi Cali Xaaji Warsame sidoo kale Faarax Cali Shire wasiirkii hore maaliyadda Puntland ayaa sheegay in damaca Daney uu Puntland u horseeday dagaal gudaheed ka dhex qarxa kaasi oo mas'uuliyadeeda koowaad uu qaadan doono Daney sida uu hadalka u dhigay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Daney waxa uu tolanayaa shaati ka weyn ayuu hadalkiisa sii raaciyay kaasi oo ula jeedo doorashada waqtigeedii la dayacay inuu isku dayayo inuu hadda qabto si kastaba arrinkan ayaa imanaya iyadoo ay soo baxayaan in Daney uu qorsheynayo sidii ugu soo laaban lahaa mar kale talada maamulka Puntland ama ugu yaraan uu muddo kororsi u samaysan lahaa dhanka kale ciidamo uu hogaaminayo xildhibaan Xaadoole ayaa la wareegay deegaano horle ciidamada militariga Soomaaliya oo ay weelinayaan kuwa howlgallada midowga Afrika ee ATMIS loo yaqaano ciidamada oo shalay galinkii hore la wareegay deegaano ku yaala bariga degmada Balcad ayaa saaka howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ka sameeyay deegaanada Mukay Dheere Shanlow Dhaqaaxow Jaamaco Xawaadle iyo deegaano kale halkaasi oo ay dhowaan isaga baxeen kooxda argagixisada Al-Shabaab howlgallada oo ay hogaaminayaan xildhibaan Cismaan Xaadoole iyo gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Kaaraan oo labaduba ka tirsanaa ciidamada militariga deegaanada Jaamacow Yaaqle iyo deegaano kale oo ku yaala jinka webiga ee bariga Balcad dhinaca kale ciidamada dowladda oo kaashanaya ciidamada midowga Afrika ee ATMIS ayaa howlgallo ka sameeyay deegaano hoostaga degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan halkaasi oo sida la sheegay lagu arkay xubno ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab howlgalka uu horkacayo xildhibaan Maalig Cabdullaahi ayaa waxaa la sheegayaa inay ciidamada dowladda iyo kuwa ATMIS ku galeen deegaanka Qoryooley iyo deegaano kale oo ka agdhow sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan nabadoon Maxamuud Cismaan Hagar oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in isaga oo jira 60 sano uu ku biiray dagaalka ka dhanka Al-Shabaab kadib markii dadka reer Hiiraan ay dhibaato adag kala kulmeen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab wuxuuna odayaasha kale ugu baaqay inay qayb ka noqdaan dagaalka ka dhanka kooxda argagixisada Al-Shabaab taasi oo dhibaatooyin badan ku haysa bulshada Soomaaliyeed